صدقة وحاواي اسكبح ما هنيك إلهي كقاعد بصدقة ديبتو هذا أنت روح بحسهم كذا بهذا شو نكبرنا سفي عنو قلق والله ده أبيل بانو درامال كستل لعك شو كتاباسي هيسكبوريني marka sadaqadana waad ogtiin inay lagu badbaado oo ilaahay awlaadiisa ugu badbaadin hayo reerka dhan ku badbaadayo waad dirtay ajar baad doonaysaa ilaahay baad la baac mushtareynaysaa qofkan maaha qofkaad wax ka doonaysaa haddaad adduunyo ku doonaysaa waa halkeed adduunkana fi nicma aakhirana fi ljanna harsiga jannadan oo hergelahayo miisaankiisa xasanaadna loogu buuxin hayo marka sadaqa yaraan iyo badnaan ma laha nin waliba wixii anaga waxaas keen intaas keen lama dhahay laakiin asalka qofka mu'minka waa maxay wuxuu bixinayo ilaahay buu kula tijaaraysanay waxay la mid tahay lacagtaad bangiga dhigato awoodda ilaahay baa askar wuxuu asaga awoodo السلام عليكم ولا ليال وادو جدان ولا لكن حسن حالدي سيداي تهي حسن هل كان ادو جدان waxa uga jiro bayb waa halka dhuunta waa halka qofka bini aadamka ugu muhiimsaneed way halkaasi baybabkan ayaa waxay sifeynayaan kiliyihiisa xasan waxba ma arko hadda anu ma arko inaan korkiisa sida u taabto maahane xasan aniga asaga waxaan isnaqaanaa muddo ku dhow 12 sano 2010kii may 2011kii ilaa iyo hadda muddo laga joogo 2 sano waxay naga dhaxaysay wada shaqeyn oo shaqada asaga uu ka shaqeynay taan ka shaqeynay ay aad isugu dhawaa ma sha Allah xasan nin wuxuu ahaa shaqeysto caruurtiisa iyo reerkiisa iyo ehelkiisa ku filan laakiin maanta waxa weey Soomaaliya xukuumadda nin noolow naafo filo walaalkeen waxa weeyaan anagu waxa weeyaan maanta inoo baahan yahay walaalkeen aynu caawino waxa weeyaan adduunyadan ayaa walaal lagu yahay oo wax la isugu taraya qofku maalinku waxa weeyaan nool yahay oo xanuunsan yahay uu kaaga baahan yahay caawinaad markuu dhinto inaad u tacsiyeyso inaad u oydo waxba tarimayso marka walaalayaal waxaan idinka codsanayaa idinku arkaayo ilmaha yaryar oo walaaladana maanta adeerku u nahay eedada u nahay abtiga u nahay oo halkan maanta ina dhex yaala oo runtii ilaahay ka sokow cid kale oo maanta u maqan aysan jirin oo anaga dadkii maanta waxa weeyaan garab ku ahaa walaalayaal aynu soo caawino caruurtan iyo xasan waxa weeye isbuuci laba mar baa laga dhaqaa kiliyaha markii waa $60 bishii waxaa looga baahan yahay $120 qiyaastii indhaha oo kale wuxuu u baahan yahay cirbad lagu diro cirbadaasi sidoo inoo sheegay hash cirbadad waa qiyaastii lacag $250 weeye marka walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa walaalkeen inaad soo caawisaan Allah idin caawiyo subhanahu wa ta'ala waxaan ahay hooyo dhiban oo odiga ka xanuunsan yahay lix caruur haysato caawinaadaan u baahanahay Soomaaliyeed waxaan rabaa inay heed iyo heelabo ay isoo istaagaan ilmaha aabahooda iga xanuunsanayo marka waxaan u baahanahay in la caawiyo waxaan ku dhacay bareesha waxaan ku dhacay sokor kiliyahana waa la dhaqayaa mar walba oo la soo dhaqana saas uu dhacanaya oo xanuunsanaya marka waxaan u baahanahay in la caawiyo garabkiisa indhihiina waxba kama arkaayo oo indhihii waxaan ku dhufteen bareesha iyo sokorta waxaana laga rabaa guri kiro ah wax la cuno ilmihii waxbay u baahan yihiin nolol u baahan yihiin marka asagana daawo iyo wuxuu u baahan yahay in la xanaaneeyo oo daaweyn oo helo marka Soomaaliyeed bal caabiya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلهي ما مهد الشكر إسكاله فلله الحمد مهد إبا أسقنا سبحانه وتعالى حافظ واحد جوجو ويل حنونسن أو صومالي أو حنونسن أو إلهي حالك سوق يهي أو إسبيتال لجيه إسبيتال كنا ما أنت واحد نتيجة أو لو كفائدين مالهن because waxaa kaliyihi waa fadhiyaan oo dhaqitaan bay u baahan tahay idinka waa ogtiin dadka kaliyaha markay sokorta ku dhufatay wadamadaas Yurub xataa $200 loogu dhaqaa marka asagii waa kan macaawimaadu u baahan yahay ilmaha yaryarka ku xariiro wiliba cunug waxa u yar 2 bilood hadda dhabta lagu hayo marka waxaan ilaahay idinkaga rajeynayaa walaalaha Soomaaliyeed oo idinka baryahayaa caawimaad ilaahay baan ka sugeynaa laakiin ilaahay ka sokow inaad walaalkiin caawisiin oo walaalkiin wax ku soo tartiin isbitaalkii waa qaraj gurigi waa kiro sabiyadan haday maanta qadaan yani ayaga ma ogo inay wax meesha wax laga keenayo wixii bay rabaan cunugan caanu u baahan yahay naas ma nuugo inaan hooyadii marna way sii orada isbitaalkii la sii orada marna waa soo orada marna cunugii isdhaafa ku dhacay naas xataa waa diiday caanu u baahan yahay
caanahana meeshaan waa qaali gasaca walaalayaal muslimiinta ah ilaahay isu gargaaruu yiri markaas aan idiin gargaaraha baa yiri subxaanahu wa tacaala wiilkan halla waa dhibaysan yahay dhibkan allah ka qaado ilaahay idankiisa fadliga allah subxaanahu wa tacaala caafimaad sareeca allah siiyo wiilkan waxaa la rabaa inaad soo kaalmaysaan allah idiin kaalmeeyo adduunkana fi nicma aakhirana fi ljanna sadaqada waxaa waaye iska bixi maaha ninkii ilaahay ka qaado unbaa sadaqada dhiibto marka sadaqadana waad ogtihiin inay lagu badbaado oo ilaahay awlaadiisa ugu badbaadinhayo reerka dhan ku badbaadhayo adduunkana fi nicma aakhirana fi ljanna harsiga jannadan oo hergelahayo miisaankiisa xasanaadna loogu buuxinhayo marka sadaqa yaraan iyo badnaan ma laha nin waliba wixii annaga waxaas keena intaas keena lama dhahay awoodda ilaahay baa iskale wuxuu asaga awoodo ninkan wuxuu u baahan yahay isbitaal wuxuu u baahan yahay maxay ahayd keliyaha sifaysan hadda infection badana lagu soo sheegay habeen ma seexda maalin ma seexdo shalay waa soo siyaartay waan imid gelinka hore wax yar buu kastoo hadda caafimaad qabi maanta markii isbitaalka laga soo bixiyay waa la soo xambaaray jaraanjad xambaara lagu soo saaray mana hadlayo ilaa waqtigan xaadirka ah ma hadlayo marka walaalayaalow ilaahay waxaan idinkaga baryaa idinkana cimri dheer iyo cibaado suuban inuu ilaahay idin siiyo miskiinkan usoo gargaara nin waliba wuxuu heli karo ha usoo diro taleefanka gabadha ayadaa taleefankeeday sheegaysaa taleefankeedaad oogu soo wada diraysaan allah yasaacidukum saacideeyo wiilkan waa xanuunsan yahay maanta ilaahay subxaana wa tacaala ka sokow walaalihiis muslimku u baahan yahay ummadda nebi maxamed uu u baahan yahay wiilkan hala soo saacideeyo ha loo kaco ilaahay idankiisa hadda gurigan 6 biloodaa lagu leeyahay ninkii guriga iska lahaa xanuun iyo xanuun la-aan wuxuu leeyahay aniga waxaan rabaa maxay aheeday lacagtayda ijaarka yaan u baahan uu leeyahay iska dhaaf ilmi wax loogu gadaaba laleeyahay asagan ijaar buu raadinayaa marka walaalayaalo hoo aadama laguma dharga hoo ilaahay baa lagu dhargaa gacanta ilaaha lagu dhargaa adinka wax sadaqaysta una soo duceeyo wiilkaan usoo duceeyo nin la arkaa usoo duceeyo inta muslim ummadda nebi maxamed ha usoo duceeyaan ducadaa wax kastaba ka weyn usoo duceeya gacantiinana ha fidsanaato in sha allahu tacaala adinkana waxaan ilaahay idinkaga rajaynayaa cimri dheer iyo cibaado suuban khayr badana ilaahay idinka jarinhayaa ilaahay idinkiisa asagana caafimaad sareeca ah ilaahay ha siiya ilaahay idinkiisa dembi dhaafna allah ooga dhigo wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu